Soomaaliya 25 sano la soo dhaafay ama laga soo bilaabo 2000 ilaa had xataa waxaan dhihi karnaa tan iyo markii burburtay dawladii dhexe dalkan Soomaaliya wuxuu gacanta u galiyay siyaasiyiin aan wadaniyiin ahayn eexda iyo qabyaaladu ku badan tahay dal iyo dad Soomaaliyeed aan ka maqnayn oo waxay rabaan ku dhaqmayo ilaa heer ay gaartay culimadii Soomaaliyeed inay maanta sidan u hadlaan ilaahay ka cabsan ummadda u talisa alle ka cabsan xil baa idin saaran ilaahay aakhire waa idin weydiinaya awlaadda muslimiinta ee gaajoonaysa haddaad qasriyo waaweyn degan tihiin oo 24 saac korontadu aanay ka damin oo biyuhu saa u soconayo taangiyo waaweyn idiin saaran yihiin gawaari qafilan haddaad ku socotaan oo aysigu idiin baxayo cuntooyinku binimaya suguntiya teersa haddaad cunaysaan la soo qubayo awlaadii muslimiinta iyo odaygii waa wadaya qof kasta oo dameer leh waxa uu la yaaban yahay Soomaaliya waxay u hagaagi laada dadkii Soomaaliyeed ee waxtarka lahaa ee wadaniyada lahaa ee daacadda ahaa ee musuqmaasuq iska ilaalinaya ee eexda ka fogaa waxa xukunka u diiday ee xukunka u sahlay kuba raba inay ka macaashaan ummadda Soomaaliya ninkii xil qabta isaga oo aan maanta waxa haysan oo koobka shaaha gadan karin bila kadib waa nin taajira oo guryo ku leh Nairobi iyo kule meelo kale oo wadamada dariska ah sida Masar hadda loo batay iyo Turkiga iyo meelo kale dad Soomaali ah oo ajaanib ku xiran oo la leeyahay hebel wuxuu ku xiran yahay dawlad hebel hebel wuxuu ku xiran yahay dawlad hebel oo la og yahay waliba meesha loo dhiibay go'aanka ay ka gaarayso dawlad kale oo aan qarsooneyn ayaa xilkii qabanay dadkii Soomaaliyeed oo dhanna waxa haysato dhibaato ay ka kabalaayihiin qof kasta oo dhalinyaro ah oo burburkii dawladda ilaa hadda soo joogan cimrigiisa wuxuu seegaya isagoo aan dawlad helin oo amaan helin oo nolol wanaagsan aan helin xataa kuwii ay dhaleen ayaa ayagana qarka u saaran su'aasha qof kasta oo isweydiinaya waxa weeye dadka wanaagsan ee wadaniyiinta ah ee xoolaha ummadda ka fogaanaya ee musuqmaasuq ka fogaanaya ee eexda iyo qabiilka ka fog maxaa xukunka Soomaaliya u diiday inay qabtaan oo sabab ka dhigay kuwa raba inay xoolaha ummadda dhacaan xukunka ama shaatiga dawladda iyo darajooyinka ciidanka iyo adaha ammaanku dadka inuu ku dulmiyaan raba oo ku xadgudbaan kuwa raba inay eheladooda iyo qoyskooda xukunka u dhiibaan kuwa raba inay kursiga u fadhiyaan haddii ay waayaan dalku inuu burburo diyaar u ah kuwa raba inay wadankan ku noolaanin oo ay qoysaskooda carruurtooda Yurub iyo Afrika iyo America iyo meelo kale intay geystaan lacagta dalka ay ka qaadaan u dira raba oo aan carruurtooda maalinta xilka qabtaan maalinta ku xigta aan dalka lagu arkay kuwa raba inay nolosha maalinba dhar xirtaan maalinba hotel seexdaan maalinba wadan u dalxiisaan raba maxaa dalka Soomaaliya xukunka loogu dhiibaa kuwa Ilaahay ka baqa oo xoolaha ummadda ka baqa oo lix jecel ka hayso dalkan oo dawladnimadu ka hayso maxay xukunka ku waayaan su'aashaas dad badan isweydiinayaan weli jawaab loo hayo bal nala daabo wadaadkan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladda dalka wuxuu baaq u dirayaa baarlamaanka wuxuu baaq u dirayaa wasiiradii madaxweynayaasha isteediyada kuwii dawladda federaalka iyo dhammaan dadka xilka ka haya dawladda wuxuu ka hadlayaa arrimo dhab ah weli wuxuu la ooynayaa dhibaatada Soomaaliya ka jirta nala daabo qayb ka mid ah khudbad uu Soomaaliya uga hadlay oo jeediyay bukaankii baa gaajoonaya waayeelkii baa gaajoonaya masaakiintii waa baktinaysaa fuqaradii waa baktinayaan war ilaahay miyay idinka yaabay war ilaahay miyay idinka yaabay war alla arkaya miyay idin arkay alla inuu idin jeeda miyay idin arkay war miyay idin naxariisanay yaad ku hadlaynaysaan idinkaa mas'uul u ah idinkaa xilka u qaaday haddaa baarlamaantiin kursiga idinkaa ugu fadhiya haddaad wasiira tihiin idinkaa ugu fadhiya haddaad tihiin madaxweynayaal idinkaa ugu fadhiya yaa ku hadlaynaysaa war ilaahay ka cabsado ummadda badbaadiya war ilaahay ka cabsado ummadda badbaadiya war ummadda badbaadiya ورمضة بدبادي إلهي كعبصر ورمضة بدبادي ورمضة والدته وارجع عصته إلهي كعبصر
war ilaahay ka cabsada war ummadda badbaadiya war ummaddu waa dhiban tahay war ummaddu xaaladeedii waa adag tahay war yaa ku halaynaysa war ciil uma qodna war ciidan uma maqnaa war yaa ku halaynaysaa war miyadan dad muslim ahayn war miyada ilaahay rajo ka qabin war miyaydan dhimanayn war miyaan ilaahay laydin horgeynayn laa ilaaha ila allah aad waa mahadsantiin aragtidaada ka dhiibo qaybta hoose faalada muuqaalkana sii sheergari haddaan nagu cusubtaan nagu soo beri aad mahadsantahay